وحد عريس عيسى سومالي دغلا اي dhagaxatii ka adagay taan meel dheer dhowrinay walaalkee dhiigis iyo dhexdeeda u dhiiranay ninba waxa la yiri nin amiin la yiraahdo islaay amiin oo ka dhex guuxaya oo amiin cuqdadiisii ku jirto ayuu masaajidka galay wala tukaday markii salaada laga baxay buu sheekhi ducadii bilaabay ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين تي مساجد كلا يدو بيسوق محمد حسوسني آمين سيري هو يدي وحاكو سمعي وكبح مركو هراء عدوال بمقام كيال كان كفر ضيان كسلامية وكوبي دونا وحالي نحلي باح أركيس هاي مقود لتو وايو تدقى علمي بدن إيقا قوم بدن إيقا وايا أركسن أيا وجهده إذا فرديا مركا af Soomaaliga waa maxaa la yiraahdaa nin xaafadaha iyagii baba lugta kabuubiyotayo buu yiri war maxaa ku helay soo jilibka ay wareeray marka af Soomaaliga hadduu wareero waydun iga raali ahaan doontaan intaas waa kaftan mawduuca la dhibay runtii waxyaabo yar oo kooban baan ka soo diyaariyay waana sii koobi doonaa maadaama waqtigu muddo 15 daqiiqo inaan ku soo koobayaan isku day doonaa ummadeenay horumar gaadho dhalinyartu doorka ay ku leedahay maxaa si caqabada dhalinyarta hor taagan dhalinyarta qura maaha ee bulshada oo dhanba maxay inoo wada hor taagan inay ummadi hana qaado amba ay horumar gaadho mawduuca buu ahaa mawduuca la dhibay da'yar amba use age waxay yiraahdeen gaaladu adugu 14 ilaa 15 ilaa 35 da'da inta u dhaxaysa iyay dhalinyar iyaga u yaqaanaan laakiin waxa professorkuna uu ka dhawaajay inan yar oo Soomaaliyeed tayadaynu dadka dheernahay oo 5 jira oo 400 oo neef oo ariya raacday oo intay saaw eegta tiraahdo nayshiina hiblaya maqan nacam tayada dadkeena aynu inagu xaqirayno inaynu dadka ka liidanayno aaminsanahay ta horumarinta u baahan waa ta dadka waaweyn waa iska daayay buu yiri professorku dhalinyarta in focuska la saaro dhalaanka in focuska la saaro la rabay waa ka saddex waxa la yiri ummadii caanaha goorma gadhoor la caanaha goorma subag laga helaa marka ay xasilaan ee ay gadhooraan ummadina goormay horumar gaadha marka ay xasisho iyo la isu geysan karaa maal iyo muruq iyo maskax la isu geysan karaa hadaba saddexda inaan la isu geynin caqabadaha ummadda Soomaaliyeed hor taagan maxay yihiin su'aasha isweydiinta li waa taa kow caqabadaha horumarka hor taagan waxa weey ummadda Soomaaliyeed waxa ku jira way fiican tahay ummadda Soomaaliyeed way wanaagsan tahay tanay tahay laakiin practically marka aynu istayno laalayaalow run aynu isu sheegnay laba nin baa shuura walada swadasi kulay Facebook aad ugu dhibteen baydun gelin laba nin baa shuura la wada siiyay nin dhala iyo nin dhaqaba shuura la wada siiyay ka indhaha qabay wuxuu ku leexsaday indhooluhu meeluna arkayn raadi nag laakiin waa u uraya wuxuu yiri wariyaa war baa jira sidii maxaa jira sidii war sankaygu hayo ay gacantaydu laada waxaan ka wadaa Soomaali way fiican tahayna waa leeyahay subax walbana waxa la sheegay waraan dhagaygu ku farxay nacam intermis in qawl ahaan iyo ficil ahaan inaynu is ahaano horta way ka dardaaran taan rabo taynu ku dhaqanay inay taan noqoto ta kale waxa jira nacayb iyo godob aanad adigu gelin oo cid kala gashay 700 sano ka hor odaye waxay isweydaarsadeen amba gacan dad ku kala dhexdhacday cid maanta joogtay inay u dhimato nimba waxa la yiri nin amiin la yiraahdo islaay amiin oo ka dhex guuxaya oo amiin cuqdadiisii ku jirto ayuu masaajidka galay
ولا تكذي مركي صلاة لقى بحبه شيخ دعادي بلابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين تي مساجد كلا يدو يسوق محو حسوستي آمين سيدي هو يدي وحاكو سمعي وكبح وايس فاني سمها ومدى الصومالية وحان دوني ياينان هالكان يدين كلا دردار مودالين يروي ولا ليالو آمين كيد سلايسين إيا آمين تمساجدكو هاي نوكلا صوعن هذا واكلا لوا waxa ay inaga danteenu ku jirno walaal hal qodob hadaynu isku diidno 9 adna koodana anna iidana yaynaan iska raacin waa isfaaniisoma marka gudaheenu it have to be clean takale cidda waxa la yiraahdaa leaders ma hogaamintu waa role wuxuu nin kastaba wax laga tuugi jiray tu uu yaqaanayo tusmuu uunku kala leeyahay eeteena naasiman nimba waxa la yiraahdaa tooyo heerku ka gaadhay xarigan kaba tolo aha kabaha xariga lagu tolo ayuu nudxada waa 3 nud xarigu 3 nud weey oo isku soo han 3du mid xada nacam xatooyo nin xarig ka baxsan waay ayaa la yiraahdaa waxa tahay madaxa maxkamadda iyo cadaaladda iyo garsoorka erga وعيدي حاجة نفقلو الله ونحرسته كن 1963 قبل يقولي اللي راه تبالها الدون وحكو جرته كابتولة محكمة لو ترشي إساقو طلعن كون شيحة بربو هذا حبة حركة هدوبو قتلتلو دقتاسيا ماله إن كستبا استيلو وحتاجو هيدين ويدو نينك كاجت توجن وقتك بنتني أودين هل كهبل ولا الكيبا إجام مدن تلقي هبار باك قدعد قولنا كم جاريسيد إلا أنت عينو قفكي سحدها هل كي سحدها هيد وقتكي سحدها إنه لبيك سنة إنه قول سيد اللو جاري رنتي وي أدقت هاي تكله خلافك يسكت وصوتي تمه وإحنا حسوس دي مركان أخري تن وضيرو سومالي لانو كلمة إلى ما يريس إن يهابا شري واحد شرتي شيء سومالي واحد عانة دين قد قد دين قل أوكي كلمة واش دول تاجي نامانتا قد كان هرتيالي إلا إن مركز خلافي مادو وإن دتكي لوجر قاعدة سما دينكو naturally وحو كدلا قد انتو لبادو لغودي دنبو هوكو قدو أيو دليه سكو آسا كبعد تمبريتشر كدولكا كليلكا ومباح دولكا أيا أبابيا دلها دينك قريادو المهيدا أروري دي ديكتايو أبودي وكل بنام بانكو اوغين قريو مركا يا خالدن مركا دعوة يا هركينا كواحد المياه قفك جيستا أيا أنت بدن دعوة كهرية اللي هو أوجي هاي واحد لويدين دونا وينو كسيور دقاي وحيدي دين با قد إيجار علي موجا لقبيجان علي موجا جدي وحيدي دين با قد إيجار قاضي بو قري كوباناي كان عدادي ويدي يجورتي هول قال قد كمالين تو قضي عدبان قريبا ويدين horta intaan gartaba la gelin war goormaad god qodan jirtay oo diin ku haysata nacam keena khaldan hadaynaan qabanin guusha caqabadaha inaga hortaagan bay kamid tahay waan isfahanaan filay ta kale bulshada qaybaheeda kala duwan maqaal yar waxaan akhriyay Afrika nin la yiri maxay u horumari weedayo I don't know waxay yiraahdeen Mugabe quotes Afrika maxay u horumari weeday baa la yiri waxay yiri ninka Afrikaanki mantu maal leeyahay uu muruq leeyahay uu maskax leeyahay dalal kale u taga hantiilaheedu wuxuu tagaa buu yiri dibadda aqoon-yahankeedu wuxuu tagaa meel kale marka uu maalkii iyo muruqii iyo maskaxdii dhamaysto dhinto yiraahdaa dalkaygii hooyaha laygu aas waa qabri suu horumari buu
وقبري سوء هرمري انت عاد حوق ليدهي اد اود ليدهي ee aqoon aad leedahay ay dadkaaga iyo diintaada iyo afkaaguba ay ku baahan yihiin ee maalinta aad maaragtay ta kale dadkeena dibadda wax ku soo barta intooda badan oo habaarka igu dhacay bullshit afrikaano nigula soo noqda ee aan tala keenin amba aqli soo kordhinin amba hooyadu ariga ka ooman yahay aan xal u wadin inta joogta oo aan isu roonayn maamulka xilka haya oo aan go'aamadii saxda ahaa amba maaragtay awoodeedii iyo kartideedii aan lahayn iyada lafteedu waa gaababka kamida degma la isku laayay practically waxyaabahan arka degmada laba reer baa isku laayay gudoomiyihii baa lagu eedeeyay reerkiina la safatay qiimeyntii markaan u yeedhnay baa qiimeyntii la galay baa la yiri reerkiina aad raacday gudoomiyihii soo yiri hadayaan raaci lahaa khaladku ninkaasi jawaabtu bixiyay waa sax because reality on the ground dhulka ka dhacay buu ku sheegay laakiin qofka maamulka ah baa loo baahan yahay inuu ka sii digtoonaado oo inuu qofkani ummadda dhexdhexaad u yahay uu labada islaynaya isagu ka mas'uul yahay marka horeba looma sheegin nabigeena maxamed alayhi salaatu wasalaam baxun lama orane waxa la yiri iqra bismi rabbika alladhi khalaq qofku xilka iyo waajibaadka ta loo dirayo in la isweydiiyaa muhiim mushaharku waa imisa hawl fulintu intee in leeg bay leegtahay haddaad ka bilowdo guul gaari maysid ta kale ummadda Soomaaliyeed caqabada ku ah waxa weeye dhaga adayg ismaqal la'aan ayada quraanka waxay ahayd innal insana lirabbihi lakanud ibn aadanku dhaga adayg inuu yahay ilaahay baa inoo sheegay isagoo laba qof ayaa la yiri ibn aadanka wargeedka aan ha cunina wax kasta waa idin fasax geedkii bay cuneen Soomaa Itoobiya maanta 120 milyan khalad intee leeg baad markaa ka filanaysa nacam inaad wanaag iska wada filato dadku iska wada fiicnaado adun baa ku daali ma wada fiicnaanaya dadku naturally dhaga adaygu waa wax jira wuxuu carays ciise Soomaaliya dhagale ay dhagaxatii ka adagay taan meel dheer dhowrinay walaalkeed dhiigiis iyo dhexdeeda u dhiiranay this is xaqiiqo cad wey qofku markuu kula joogo waa qof fiican waa wax wanaagsan markaynu sidan u wada hadlayno halkan marka laga bilaabo laga baxo automatically qofku wuxuu noqonayaa qofkii kale ka duwan odayaayim waxay dhahdeen jifadii baan nahay oo saaso ku adeer bakoorada weyn maxaa idinka qariyo jifada waa inta yare oo hooseysay bakoorada qashinka taabata halka gudaafada la maxaad inoo geysin baan ku yiri bakooradu meenadi dhamaystir ku qurux badnayn wadartaynu ku qurux badanahay kelida kuma qurux badn marka we have to think inaynu taa ku baraarugsanaa ta kale waad garanaysiin gabaygii timacade Allah u naxariistee dul iyo hoosba waan ugu dhagay waa dhagaxeed dadkan la hadlayaa baan lahayn duxiye iimaan bal inay dalfoof tahay aqliga dooni laga saaray wixii hore u soo daashaday dihashanaysa hal maalin war isdilay oo isgaraacnay ninna ma tago waan wada joognaa war kullay wada joog haday noo tahay inagoo isu niyadsan inaan wada joognaa walaalayaal miina ka wanaagsanay nacam option يا محايدي تكست فرن تكله دقة أضيق يستدلك يا ما ركتي مركينو ينقو يسون حريسان ويني بيجي وحيد قاسم الله هون حريستين وواحد عبارنا نتيجة ذا كصوب هذا يستدلك إني داوي محل ولا لحن تمي وين حوالي يريان وين حضارة بديان نتيجة ذا كصوب هذا بنعيب كينو كل قني محيطان كو وحيدي وواحد عبارنا قصة اللي ذي صوف مريبتا صعد عيالك وواحد بيوه وقصعد عليه بيه عيالك غصب يودده سمادي ضرور لقومه وقصير مويده وحده سمادي بنوع عروتي أو كل بنوع عروتي أو أنا جو عن كل دقيقة لا يسكت صحن لبادي دارات بوانكو خسارة زين هاي بيجي لا لبادي دارات با خسارة هنا قاعدين تكله إن كسو قبيني يا وحوي ما دام وقته إن بدن سوقاتي
hawl diid hawl nacayb Soomaalida hore waxay oran jirtay xagla laaban xoolo kuma yimaadaan generation ka imika joogay xataa thank you waa sideed xaraf saddex buu qoraa TKS I'm telling you the truth وعلى لما هلا وذا ذو وحن عدو كهوشون واحد الدنيا ذا هول يران لقو هلا يمجرتو وحي لودان الله هون حريسته سمعت ذا نكير رادية إيه سبنا قاعد سفرت يبقول يلق يسودي يجور أنت بواسعه سمعت ذا نكير رادية إيه سبنا قاعد سفرت يبقول يلق يسودي يجور سلدا أدق وحي كاغشو يسرن عريود با مرون بو إله سينا يا ومدك تسارا هيا شيء سنسان بي ربطا أساس مركيتا وانا تسمر كيدي دلقات كيدي مالكي مرقي مسكح دي كاغا باهنايد قوشا أتربطو إناد قاعدا دهورتا هدي كلا قول مرادين يسيدي it's a dream واد ريونيسا رياد كجرتا تكالات مع دواحة ويدي مدك تادو وحي حوكستا ما يرقع جدا markaan Allah hayn looma lulamaanka waliga ee magaabada hashaada ka roon may dhanaan kale ninka intanoo fooq leh aniga maalin xabad bariisa yimi iibinin inta leedahay hashaada yar ridaada yar cawsu dhigo oo caana kamaal taada ku huran nolosha sidaad u rabto hadaad u weydo waa ku qasban tahay sidaana jecel inaad ku noolaato marka waxa iga dardaarana inaynu inagu isu niyad samaano danteennana ka wada shaqaysano maal iyo muruq iyo xasilooni guushaydu waxay ku jirtaa guushiinuna waxay ku jirtaa aniga ee hadaynu isdilo waxa la yidhi walaalka umba ka dhimayo kugu dhimay markaynu wada nahay weligeen guul gaadhimayno kollay saacadihi baa sidaas u yaraaday intaasaan doonay inaan ku koobo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.